iyadoo dhawaan khilaaf uu soo kala dhex galay Soomaaliya iyo dawladda Kenya ayaa hadalhayn badan ka dhalatay arrintaas oo jirta ayaa habeenkii xalay ahayd dawladda federaalka Soomaaliya waxay soo saartay bayaan ay ku sheegtay in dawladda Kenya ay xiriirka ugu jartay haddaba shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa telefishinka SBC mikrofoonka la dhex qaaday iyagoo aan wax ka weydiinay aragtidooda siday u arkaan xiriirka xumaaday ee labada dawladood ee Soomaaliya iyo Kenya waxaana hadaladoodii kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim waa ku haboon tahay waana xilliga loogu talagalay ay ku soo aaday ilaahay baan mahad iska leh muddo horan sugeynay raggii hore ee maaragtay soo maray madaxda Soomaaliyeed aad iyo aad mataqaana maaragtay uga habsantay aad iyo aad uga xumahay raggan xiriirka u jiran waa ku mahadsan anigu waxaan aaminsanahay si sax ah inay dawladda Soomaaliya ay martay wadadii loo baahnaa sababtoo ah Kenya ma ogola qarannimada Soomaaliya midnimada Soomaaliya oo aragtaa maanta inay Soomaaliya kala qaybinayso u yeedhayso madaxweyne Biixi oo kale marka anigu ma aaminsani Kenya in xiriirka loo jaro ganacsigeeda wixeeda macadiyaraha Soomaaliya inay tagaan ma aaminsani dadku way ka yimaadaan meelaha kale oo soo maray adduunku waa farbaday saasan aaminsanaanu rayahan وأنا كنت أقرسني دولة إني كيني يحير كوتشرت ما دام نان أقرين شريتان كاجي يدد نماذج آن أقرين نكوريس نان من أدنى دي ترنتيس ست كوا وذاك تاني مسياش باتيس مركها أنه شعبهان وأنا تأقرسني دولة فدرال الصومالية إني يحير كوتشرت كينيا حرير كلاجري كينيا أدانا هاي الصومالية كل قن مقالة مقدشة أنا أسوق دويننا Soomaaliya iyo Kenya iyo Kenya xiriirkiin loo jiro ku faraxsanahay waayo caqabad badan ay nagu haysaa Kenya caqabadaas maxay tahay fargelin badan ay ku haysaa dawladeena hadaan nahay shacabka Soomaaliyeed waan soo dhaweynaynaa ku mahadsantiin idinkan magacayga waxa weeye Cabdiraxmaan Usmaan Cabdi oo kuma cadheer Cabdiraxmaan Baylod walaa aad ugu faraxsanahay dawladeena maarta Soomaaliya in dawladda jaarkana la Kenya inay xiriir ku jirto aad ugu faraxsanahay weliba waxaan leeyahay maartaan yani waa la soo daaday mar hore inay xiriir ku jirtay because waxyaabo badan maarta Kenya waa indhaha laga qarsan karin ayaa nagu samaysaa oo sida midna gobolka gedo ama guud ahaan yani Jubbaland markii la adeegtid ciidamada maarta jooga gudaha Soomaaliya ee dib badan noo geysteen shacabkeena u geysteen iyo waxyaabo kale maarta hadda waxa ugu dambeeyay shalay maarta madaxweynaha Soomaaliland oo arkaysa Muuse Biixi ay soo dhaweysay ayada macnaha ku xumaynaysa dawladdeena Soomaaliya marka sidaa daradeed yani maarta aad oo soo dhaweynaya xiriirka u jirta dawladda Soomaaliya ee Kenya waana Fisa Cabdilaahi Qorne warbaahinta SBC magaalada Muqdisho anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo war ma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir